wasiirka wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Marreexaan ayaa daahfuray mashruuca biyo balaadhinta magaalada Ceerigaabo waxaana munaasabada lagu daahfurayay mashruucan biyo balaadhinta Ceerigaabo goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda hawlaha guud gudoomiyaha gobolka Sanaag maayarka degmada Ceerigaabo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda isuduwaha biyaha ee gobolka maamulka iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha Ceerigaabo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka iyo mas'uuliyiin kale waxaana ugu horeyn halkaasi ka hadlay agaasimaha biyaha kore injineer Mooge oo faahfaahin ka bixiyay sida uu noqonayo mashruuca biyo balaadhinta magaalada Ceerigaabo maanta ay taariikhdu tahay 4 bishii koowaad 2023 waxaan daahfur ku sameynaynaa mashruuci balaarnaa ee muddada dheer aynu sugaynay gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Ceerigaabo biyo balaarintii magaalada Ceerigaabo maanta waxaan halkan u joognaa inaanu daahfuro mashruuca biyo balaadhinta magaalada Ceerigaabo mashruucaas oo runtii ah mid aad muhiim ugu ahaa magaalada runtii mashruucani wuxuu ka koobnaan doonaa oo u qaybsami doonaa in la qaybiyo ama magaalada lagu fidiyo beebkii biyaha qaadi lahaa ama qasabadihii biyaha qaadi lahaa kuwaasoo kala duwan cabiradoodu kala duwan yihiin laymanka ay marayaan iyo wadooyinka dhulka ay marayaan kala duwan yihiin noqon doonana mid magaalada qaybaha ugu muhiimsan iyo inta ugu badanba biyaha siiya runtii beebkaasi beebabka nooca ugu tayada sareeya biyahana qaada magaaladana ku qaybiya oo ah kuwa transmissionka loo yaqaano oo 6 inch ah kuwaasoo qaadi doona biyaha ilaa 1400 mitir beebka loo yaqaano distribution systemka ee magaalada ku lagu qaybinayo oo isaguna 4 inch ah salaadiin cuqaal waayeel waxgarad iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka Ceerigaabo ayaa iyaguna dhankooda aad u soo dhaweeyay mashruucan iyagoo aadna ugu mahadnaqay cid kasta oo gacan ka geysatay mashruucan biyo balaadhinta magaalada Ceerigaabo mashruuca kan biyo balaadhinta wasaaradda inoo keentay oo ka mid yahay wasiirku hogaaminayo aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa boqolkiiba boqol baan soo dhaweynaynaa waadna mahadsan tahay baan leenahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa waxa weeye tafadal baan leenahay waa kugu qiimeynaynaa inta aad joogtid dad mashruuca dhamaysid gaarsiisid biyo gaarsiinta waxaanu taaganahay taangigii biyaha kaydka oo biyo ballaarintii Sanaag Ceerigaabo degmada khaasatan waa halkan loo fadhiyaa waxaana la fadhiya wasiirkii biyaha kheyraadka biyaha oo wax badan soo qabtay oo annagana soo gaaray horena noogu yimi waxna noo qabtay badan ee Ceerigaabo waxay u baahan yihiin farsamo lagu wada gaarsiiyo dadka marka biyaha badan ee Ceerigaabo dee waxay u baahan yihiin xaafado badan oo aanay gaarsiisnayn dad yaro badan oo aanay gaarsiisnayn waa jiraan baan soo dhaweynaynaa mar haddii la yidhi intaasoo mitir baa la samaynayaa oo la gaarsiinayaa aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa wasiirka iyo agaasimuhu waa ku mahadsan yihiin hadal badan halka ma yaalo waa dhagax dhig balaadhintii gobolka Sanaag ee biyaha aad baan soo dhaweynaynaa oo runtii wax lagu farxo taangigan marka halka laga dhisayay dad baa la yaabanaa laakiin wax badan oo maalinta dadka ka maqnaa baa hadda dadku aad iyo aad u fahmaya Ceerigaabo waa run biyaha waa ka qani laakiin waxay u baahan tahay in la horumariyo oo la gaarsiiyo dhul badan taana kulli dawladda ayaa had iyo joor hagta iyaduna maanta way u joogtaa oo aad iyo aad baa loogu mahadnaq biyo gelintan waa u baahneen runtii xoog bay degmada ay ugu oomanayd aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa wasiirkana horaanu u sheegno magacyo badan baanu u bixinayo haddii allaba ku rooyo waxaanu doonaynaa oo aanu imikana ka codsanaynaa wasiirka leenahay wasiiriyay nagu noqon tii xuunba weyne la sheegi jiray Hargeysa ee ha noo soo degdegto biyo gelintaasi intaasina waa fariin annagoo hubna inuu yahay nin
dedejinaya hawshaa oo aanay ku raagayn. waxaanu halkan uga mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda khayraadka biyaha iyo tiimkiisa la socda oo maanta halkan daahfurka biyo balaarinta Ceergaabo aynu halka u joogno. runtii muddo badan bay magaalada Ceergaabo ay biyo balaarinta sugaysay. biyo way haysataa laakiin biyo balaarin bay u baahneed. mashruuca biyo balaarintana waa shaqadayadii, waa shaqada magaalada wadana, waa wax anaga noodana, waa wax mujtamaca wadana. aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa. way ka dhineed magaalada. wasiirka wasaaradda biyaha iyo khayraadka wuxuu leeyahay ammaan gaar ah buu leeyahay. maanta dee farxad weyn bay noo tahay hadaynu reer Ceergaabo. waxaa laynoo daahfurayaa mashruucii biyo balaarinta degmada Ceergaabo oo in badan sugaynay. marka koowaad waxaan uga mahadcelinaynaa wasiirka iyo tiimkiisa oo ka soo shaqeeyay oo maantana inala jooga inay mataqaanaa inoo daahfuraan mashruuca biyo balaarinta. gobolka Sanaag iyo degmadiisa iyo degmooyinkiisa doorkan dee majority hawli ka socdaan waxa weeye waa idin mahadnaqaynaa Ilaah baa mahad. markay sidaa tahay horta khayraadka biyaha waxa weeye aqalkana ugu horeeyay maantana waa biyo balaarin ma sha Allah. biyahayna waxay noo galeen buur qaali ah. meeshana walba waxay ahayd buurta beeraha ugu dheer iyada lahayd buuraha ugu dheer oo waa surud. biyaheediina surud labaad bay noqdeen ma sha Allah. maayarka degmada Ceergaabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur, gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse, agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda Ismaaciil Salebaan Bowkax iyo wasiirka wasaaradda howlaha guud dhulka iyo guryeynta Somaliland Mustafa Maxamuud Cali ayaa mashruucan ku tilmaamay inuu yahay guul soo hoyatay dhammaanba bulshada gobolka Sanaag, iyagoo aadna u bogaadiyey inay siyaasadda madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ay siyaasadiisu tahay in dalka biyo la wada gaarsiiyo. mashruucan biyo balaarinta idalaal cidii wax ka soo qabatay oo wasaaraddu kow ka tahay waa ka mahadnaqaynaa aad iyo aad. waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka qaale baarlamaanka oo runtii hawshan gacan weyn ku lahaa. aad baan ugu mahadnaqaynaa. waxaanu kaloo u mahadnaqaynaa injineerada halka yimi uu mooga hogaaminayey shaxdan biyo balaarinta sameeyey muddada doora inala joogay ee ku dadaalay. waxaanu leenahay injineeradana miisaanka xasuunaadka alla idinku daro. salaanka bacdi runtii waan uga mahad celinaynaa wasiirka inuu maanta u yimi iimka weyn oo u yimi uu yahay biyo balaarinta gobolka Sanaag. runtii gobolka Sanaagna waxaan ku yiri waxay ugu fadhidaa muhiimad weyn. Somalilandna muhiimad weyn bay ugu fadhidaa. haddii alla ba ku rooyay bulshadana muhiimad weyn bay ugu fadhidaa. marka waa nasiib wanaag runtii adduunka taaka loo socdaa saaka haddii ay biyo balaarinta Hargeysaba in badan runtii dhagaheena ku badnayd haddii maanta loo fadhiyo biyo balaarinta Ceergaabo horta waa sharaf iyo wanaag iyo horumar. inaguna gobol Sanaag ahaan waa ka mahad celinaynaa runtii. dadashan farxadda leh ee balaaran aynu ku daafurayno biyo balaarintii degmada Ceergaabo aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa cid walba oo ka soo geysatay tallaabo ama contribution ku soo darsatay. mahad gaar ah baan siinaynaa. ilaahayna waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah ugu daro. mashruucan biyo balaarinta magaalada Ceergaabo oo in badan aynu sugaynay maantana dhagax dhigiisii joogno. insha Allah waan rajaynaynaa inuu bilaha ugu horeeyo dhamaystirmo haddii Alla idmo oo Ceergaabo guri to guri ay biyo u helaan sida ay noo sheegeen howlwadeennada wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha. in ka badan 16 kilomitir iyo 400 mitir baa maxaan ku raahdaa la samayn doonaa, la gelin doonaa, beebabka la tixi doonaa. beebabkaasoo ugu yaraan ilaa 4 nooc isugu jira. aad iyo aad baan uga mahadnaqaynaa gobol ahaan iyo degmo ahaanba. farxad taariikh iyo guul baynoo ah inaynu daahfurno mashruucii biyo balaarinta ee magaalada Ceergaabo. ugu horeyn waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo cid kastoo ka soo shaqaysay uu kow ka yahay madaxweynaha qaranku oo ay siyaasadiisu tahay koobaad ama priority-giisu inay dadku biyo helaan. waxaan mar labaad u mahad celinaynaa
wasiirka xaqiijiyey himiladii iyo siyaasaddii madaxweynaha shaqadiisiina ka soo baxay wasiir cali mareexaan magac laga miskiin maaha waa u mahad celinaynaa isaga wasaaraddiisa iyo howlwadeennadiisaba wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha Somaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexaan oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay muhiimadda uu mashruucan biyo ballaarinta magaalada Ceerigaabo u leeyahay bulshada Ceerigaabo iyo guud ahaanba gobolka. maanta waa maalin aad iyo aad runtii farxad inoogu ah qarankeena Somaliland gobolka Sanaag magaalada Ceerigaabo iyo wasaaradda iyo xukuumadda aan ka tirsanahayba maalintaas oo ah inaynu maanta mashruuc weyn daahfurayno mashruucaas oo ah biyo ballaarinta magaalada Ceerigaabo oo biyihii magaalada la gelinayay mashruucaas la ballaarinayo oo intii ay markii hore ugu jirtay in ka badan la gaarsiin doono haddii la ka dhigo mashruucaas sidii agaasimaha biyaha oogada mooge oo halka ka sharaxayay injineeradii la socday waxa uu noqon doonaa biyo ballaarinta dhulka la gaarsiinayaa oo magaalada lagu fidin doonaa 16,400 mitir dhul baladkiisu gaadhayo waa marka la isu geeyay inta mitir ee la maray laakiin square meterku intaas aad buu uga badanayaa waa 16 kilomitir dhibic 4 marka farsamo ahaan waa tii leedii sharaxay waa beebab waaweyn oo sigisoo magaalada gaadhsiiya beebab kaloo foorahoo iyana meynahoo qaybiya kuwo laba ah oo kasii hooseeya kuwa waxaa kasii hooseynaya kuwa yaryaraaya markaa xaafadaha loo sii kala talaalayay marka waa mashruuc aad iyo aad u ballaaran mashruucaas siduu u dhan yahay wuxuu ku jiraa miisaaniyadda qaranka waana waxyaabaha ay xukuumaddiinnu ay idin fulinayso haddii alla ka dhigo waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland Ceerigaabo.